أيوة عبد الرحمن شيخ عثمان وحكى على جامعة ألفا أبن السلام يا مدحوينها يو مرتدى كلبا مدحويني waxaa jira bulshada Soomaaliland ku nool bulshada jirta la takooro wala haybsooxo oo waxa weeye bulshooyinka kale la dheeraha sheegatay oo qabyaalad bay isku haystaan laakiin iyaga waa la takoora bulshooyinka ganacsiyadii ay haysteen waxa muuqata in duulaan lagu soo qaaday ra'iislayaashii waa laga wareegay ganacsiyadii kalena waa laga wareegay ka mas'uul ahaan iyo ka madaxweyne ahaan maxaa muddo 6 sanadood madaxweyne xilka haystay bal nooga waran waxyaabihii aad bulshooyinka la haybsooco u qabatay policy-ga iyo siyaasadda dawladda ugu yaala iyo caqabadaha aad u aragtid inay ka xukuumad ahaan ka idinka xoog weyn yihiin ee ay tahay bulshadu inay ku baraarugsanaato qodobkaas oo ka tala bixinta waxaan oran lahaa madaxweyne waxaynu wax ku baranaa manhajka Englishka iyo af Carabiga ayaynu wax ku baranaa si aynu af Soomaaliga wax ugu barano waxaan u baahanahay inaynu cilmigii af Soomaaliyeeno sidaa awgeed mas'uulka waxa uu jecel yahay inuu magaciisu 100 sano waaro waxaan aaminsanahay haddii aad aasaastid hay'ad qaabilsan in buugaagta aqoonta la turjumo oo sanad walba 50 buug ilaa 20 buug la turjumo oo ardaygii caafimaadka baranayo uu helo buugaag badan oo af Soomaali iyo caafimaad kii engineering uu helo waxaan qabaa inuu magacaaguna muddooyin fara badan waarayo horumar ballaaran aad ummadda Soomaaliyeed oo dhan iyo cid kasta oo Soomaaliga barata oo ku hadasha ay tarayso su'aasha iyo talada ban qaba su'aasha Cabdiraxmaan ahayd haybsooca waa talo guud oo soo jirtay lana wado waana arrin ku xidhan dadka waa ummadeena wari u dhagan ulaanin masaajidka waa laga wacdiyaa shirarka waa la iska wacdiyaa qofna ma diido haddana saad u aragtay u gaabinaysa marka waa wax bulshada aad iyo aad ugu xidhan oo u baahan in aad isu wacyigelin maskaxda la bedelo dawlad iyo qofna way ku adkaanaysaa bedelo laakiin saad dareemsa la dareemaya taawar waa qof waliba oo xirka soo saasu dareemaya maxaad ka qabatay sharciyo badan baa laga qoray waxa kamid ah in dadka ajnabiga shaqada hoose la siinin shaqooyinka ay qaban jireen laga qaaday waxaan soo saaray in ay dadka ajnabiga ka shaqeyn iyaga loo daayo marka waxa arkaysaa bahar ra'iisul qurux badan oo Itoobiya aan haysto deetro waxa la leeyahay warka hal xiro yaa shaqada siiyay masaga waran qabanay tabeetana la dheera oo caalkiisa wata ragga fadhiya qolada dheer ayaa soo baxaya oo cid wato baharka wax qoranayo marka waxaan baanaa inaan kuwa soo dhigno media TV la dheera timaa ku haysta qolada wax ka daay bahash meel butaasar taa kale waa ra'yi rasuulku ku raacsanay afsaariga hal bedelo culumta oo sax aasiya waxa ka